أريا حادي تري ما بكون دورك النبوك حاد في رسالة ما بكون دورك سبيس daawadayaal kusoo dhawaada saxafi films oo aad ka dhahataan barnaamijyada aynu kaga hadalno arrimaha bollywoodka ee dalkaasi hindiya barnaamijkan waxa aynu kaga hadli doonaa aktarada da-da yar ee Disha Patani oo kamid ah dirishooyinka ka howlgala shirkadda aflaanta sameysa ee bollywoodka. Disha Patani waxaa lagu yaqaanaa qoobka ciyaar ama dansiga inay kamid tahay dirishooyinka ugu haysta markii ay noqoto filimada dansiga loo soo xusho laguna daro. haddaba warar ayaa sheegaya in shirkadda aflaanta sameysa ee Yash Raj Films oo kamid ah kuwa ugu magaca weyn in ay soo waday filim dance action ah. Filimkaasina loogu talagalay iyada iyo Hrithik Roshan waa Disha Patani inay wada daadiyaan. ugu dambeynna muran badan oo labadooda dhex maray filimkaasi ay Disha Patani joojisay inay Hrithik Roshan la jisho. dhanka kale wararku waxa ay sheegayaan in Disha Patani ay u ololeysay oo propose gareysay halka Hrithik Roshan ay filimka la daadihin lahayd ay rabto Tiger Sharif oo isna kamid ah aktarada lagu yaqaano dansiga amaba qoobka ciyaarka kuwooda ugu heerka sareeya in ay u propose gareysay Yash Raj Films si ay ula jisho. taasina ay sababtay in Hrithik iyo iyada ay isku dhacaan. arintaasi Disha Patani waxa ay tiri wax jira maahan, weligeyna filim la ima soo bandhigin la yiri waxaad la daadiin doontaa Hrithik Roshan, waana arrimo suuqa isaga jira oo sad iyo raad aan lahayn. markii ay ka hadlaysay dhanka Hrithik Roshan, Disha Patani waxa ay xaqiijisay oo sheegtay Hrithik Roshan inuu yahay shakhsi aad u wanaagsan ayna jeceshahay inay isaga filim la wadaagto. ma ahan bay tiri in warar been la iga sameeyo oo la yiraahdo Disha Patani ayaa ka soo horjeeda la jilada ay Hrithik Roshan filim la daadiinayso. Disha Patani haatan waxay daadiinaysaa filimka uu leeyahay Ali Abbas Zafar muranka badan dhaliyay horaantii bishii la soo dhaafay kadib markii ay isaga baxday aktaradii loogu talagalay ee Priyanka Chopra arrimo iyada u qaasa iyo guurkeeda ay guursan lahayd Nick Jonas oo lagu soo bedelay Katrina Kaif. Salma Khan ayaa filimkaasi la daadiin doontaa. dhanka kale Hrithik Roshan arrintaasi marka uu ka hadlayay laftiisa waxa uu cadeeyay oo uu qirtay in arrimahan ay yihiin wax beena, waxaana uu sheegay warkaasi war jira maahan, mana jirin buu yiri filim Yash Raj Films ay noo soo bandhigeen aniga iyo Disha Patani oo aan aniga ku aflagaadeeyay gabadhaas iyo aktarishadaas. wuxuu yiri sumcadda kule aad ayaan u jeclahay buu yiri, waa gabar wanaagsan waana jeclahay lafteeda inaan filim la daadiyo. waxa uu intaasi ku sii daray in Hrithik Roshan halka sarta ay ka qurantay buu yiri oo warkan uu ka soo baxay cid kale ma ahan, waa Hrithik Roshan waxaanu hadalkaasi ula jeeday Kangana Ranaut kadib markii ay Kangana Ranaut iyo Hrithik Roshan uu muran dhex maray ilaa heer maxkamadeed oo ay Kangana Ranaut aflagaada u geysatay oo ay ku tilmaantay inuu yahay shakhsi laga roonaa oo ay xiriir jacayl la wadaagtay kadib kala tagoodii isaga iyo Zuzana Khan. waxa uu yiri wararka noocaas oo kale ah dad ayaa suuqa gelinaya, waana ogsoonahay in hadalkaasi Kangana Ranaut ayuu ula jeeday Hrithik Roshan. khilaafaadka u dhexeeya Kangana Ranaut iyo Hrithik Roshan ma ahan mid dhammaad leh, waa wax iska joogta, hadba mid ayaa suuqa soo geliya war kan kalena jawaabta uu leeyahay ayuu siiyaa. haddaba daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay Hrithik Roshan oo mar labaad isagoo careysan u jawaabay Kangana Ranaut kadib markii ay suuqa gelisay warar sheegaya in Disha Patani ay diidan tahay inay Hrithik Roshan filim ay leedahay shirkadda Yash Raj Films oo dance action ay la daadiso, dooratayna in bedelkiisa la keeno aktarka lagu magacaabo Tiger Sharif oo wiilka uu dhalay J.K. Sharif oo kamid ah aktarada shirkadda aflaanta sameysa ee Bollywoodka kuwoodii ugu caansanaa 80maadkii ilaa bilowgii 90maadkii. daawadayaal barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabeynay. halkaad barnaamijka ka daawanaysaana waa Saxafi Films oo alabaad ka dhaataan barnaamijyada ugu xiisaha badan ee arrimaha Bollywoodka. haddaba haddaadan kamid ahayn bahda ku xiran Saxafi Films ugu horreyn barnaamijkan aad daawanayso like saar kadibna subscribe Saxafi Films taaba gambareelka si barnaamijyada ka baxa Saxafi ay joogto kuugu noqdaan. fikirka aad qabtidna waxaad nagula wadaagi kartaa qaybta commentiska ee afkaartiina loogu talagalay. inagoo isku duuban oo bahda Saxafina waxaynu idinkaga tegaynaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo.